بسم الله الرحمن الرحيم dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii ka soo yeedhay Axmed Suleymaan Cabdallah ina Suleymaan Dafle oo ugu jawaabayo aqoonyahan taariikhyahan Maxamed Cabdi Halac waxaana barnaamijka noo xidhiidhinaya Bashiir Tarabi Ogle ku soo dhawaada waad mahadsan tahay Bashiir Tarabi injineer Bashiir Tarabi Ogle السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan markaa u mahadnaqayaa mar labaad haddana mareegaha wararka iyo website-ada iyo media iyo TV-yada dhammaan waxaan ka bilaabayaa Axmed Suleymaan Dafle wuu hadlay halkan uu iga dhaweyd ka hadlayay meediyahan taariikh booshaqa oo been uu ka sheegayay dambiye badan buu haddii la yiraahdo ka shubayay si kooban baan doonayaa inaan uga jawaabo arrimahaas waxaan ka jawaabayaa waa 3 qodob mid waxa weeyaan daraawiish magaca laftiisa muxuu ahaa yaa lahaa sidoo ku baxay yaa bixiyay halkuu ku baxay midna waxa weeyaan daraawiish lafteeda yaa ahaa yaa u talinayay maxaa arrinkeedu ahaa midna waa Axmed Suleymaan shakhsiyadiisa Axmed Suleymaan Dafle iyo arrimihiisa aan ku horeeyo markaas ta hore daraawiish Axmed halkan wuxuu ka sheegay taariikhda daraawiishta isagoo aan sheegin darwiish cidda lahayd iyo cidda la oran jiray daraawiish buu sheegay oo Soomaaliyeed maqasho in dadku qaarna rayadaan qaarna daraawiish ahayn oo qaarna markaa ku suntan yihiin halgan iyo xumaandiid iyo xorriyadoon qaarna ku suntan yihiin dad isticmaalka la joogay taasoo uu si yaani madow oo been oo gudcura uga sheegayo been uga sheegay aniga siday saxa ku ahay daraawiish u sheegaya anigoo aan cidna waxba ka qaadaynin oo ka dhimaynin cidna aan waxay lahayd iyo hilba ay lahayd aanu diidayn cidna wax aanay lahayn saarayn daraawiish ina Cabdullah Xasan adam wuxuu ka yimid meesha la yiraahdo Saudi Arabia wuu tagay jaamacad ka muu soo bixin wuxuu kula kulmay halka rag gobonimo doon oo Carab iyo Afrika ku soo socda oo jaamacada ka soo baxay oo uu ka mid yahay ninkii Suudaan ka dagaalamay Al-Mahdi la oran jiray Mahdigii Suudaan iyo ninkii la oran jiray Umar Mukhtar ee ka dagaalamay Liibiya dabadna wuxuu yidhi anigana jamhuuriyadda ardu Soomaal baan ka yimid jamhuuriyadda ardu Soomaaliland la igu celiyo waa la soo diray berberu ka soo degay halka waxa ka soo galbiyay rag dadka Axmed eedaynayo ee caayay dabadhilifka iyo faqasta ku sheegayo ahaa waa la soo kaxayay rag baa waday aqoon leh been buu sheegay meel nabar ahayd ayuu ninkaasi damqayo xadateeyay يعني إنه كل أرسيه هاي إن استعمار الله دجالمه دبدنا ساسا لجو راعي ماشي قريوين اللي يهابا لكياني قريوين هالكا وحكب حي مجعي هالكا مجع كب حي الدرويش كلا ينهضو وحلها نين لورن شري الشيخ أحمد درويش نين كاسوا نين أودا شيء تيجانك أما عرقابو أما برعودة أما مجانا حيس مركه هاس لا صعدو إلا قابرده حيس يوم ما يدوال جرانا يا halkaasuu u dhashay xiis iyo maydh buu u dhashay wuxuu ahaa sheekh isagii cayladiisii ka tafirantay caan yihiin wuxuu ahaa dadkan uu eedeynayo Axmed Silaani oo kale yaani uu ku sheegayo dabadhilifka nin qoyska laftiisa ama ka soo jeeda buu ahaa wuxuu ahaa ninkii dhalay sheekhii magac weynaa ee ilaa cadan ilaa Tanzania ilaa Somaliland inta u dhaxaysa يعني لقى سيارة جري لقى تحقلين جري شرعي رج بسوا قاري أما الضد كبا الشيخ حسين أحمد درويش أبيه بوها وردقين هين أفريقيا إيشيا بوي شوغان عائلة ديسي إلى يوروبو داتين شيخ سعيد شيخ محمد أحمد درويش شيخ أنيس شيخ محمد أحمد درويش بالكن لا شوغو ولا لا مقع أورت الدرويش كلا هذا شيخ خاص على هاي شيخ خاص هنا عبد الله حسن كرامي وكنت وصلي قريوين وعين بقى وين ماشو halkaasaa jabada daraawiishta la ka bilaabantay sheekhaas sheekh jaamacad ka soo baxay buu ahaa dhowr 80kii 1880 iyo 1890
magacu halkaasuu ka yimi magacu waa kaa shiikaasi waa kaa cid kalena ma sheegan karto cid kalena laguma sheego librariyadu yaalaa daraawiishna halkaasay ka bilaabantay dagaaladii ugu horreeyay halkaasay ka qaaday mudday deganaayeen cayn mudday deganaayeen beer mudday deganaayeen golis iyo buurdulandul iyo cirifka saraareed iyo waqooyi halkaasay dhowr sano dagaaladii ugu horreeyay ka qaadeen markii dambe dagaalku ballaadhay ee wacdara dhaceenna waxa loo durkay xeel dagaal iyo taleex baa lala tegi halkaasaa xarun laga dhigay oo yar fogeyd horta magaca daraawiish la yidhaahdaa ciddii doonta maanta ha sheegato ama ha jiidato waa kaas ninkii aan ogeyn ninkii been ka sheegaya iyo kii looga sheegayaan hore u maqalowba oradoo cidna ha ka magansana librariyada baadh waliba kuwa ingiriiska baadh oo doon magaca ah cidda lahayd ee dhabta ah kaasu waa magaca ka labaad waxa weeye daraawiish waxay ahayd dhowr qaybood ciidan waa jiri dagaalama ah abbaanduulayaalla wuu lahaa midna wuxuu ahaa taliska sare waxaa jiray oo kale guddi khusuusi la yidhaahdo idaarada oo fara badan 5 nin oo ka taliya oo idaarada sare ah oo talisina waa jireen waa qoran yihiin ma aha wax anigu maanta aanu magac bixinayo ama dadka baraayo oo anigu samaynayo jeebkayga ah mana aha wax Axmed Saleebaan Cadafle oo dadka barayo waa wax hore u qoran 5 nin oo waan sheegayaa 5 nin waxay ku qoraayeen halka laga keenay golihii sare 5 nin ee guddiga siyaasadda loo oran jiray waa halka laga keenay ee lagaga dayday ee laga soo guuriyay waxa weeyaan 5 nin ninna Cabdulla Xasan buu ahaa halkan ehelo uma joogin tolo uma joogin oo halka uu ku dhashay dee loo ogaayo kaliya shanaad u dhashay 4 nin kale nin ra'iisul wasaare ku qoraa Suudi Shabeellaha la yiraahdaa nina wuxuu ku qoraa wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdulla Shixiri baa la yiraahdaa nina wuxuu ku qoraa wasiirka arrimaha gudaha waxa la yiraahdaa Ibrahim Buqul nina wuxuu ku qoraa wasiirka cadaaladda waxa la yiraahdaa Xirsi Afdiir 4 nin in Cabdulla Xasan mooyaan 4 kale ayay ahaayeen siilaanyaa uu faqasta ku sheegayo Axmed Dafle awoowayaashii bay ahaayeen 4tuba waxay ahaayeen dadkan Axmed Saleebaan uu u bela doonayo ee isleeyahay credit-ka ka xumay ee caayayo ee dhalay ee abtiyadiya ee koriyay ee araxda ku qaaday ee naaska jiqsiyay ee caanahooda jaqay ee waxbarashada ku soo koriyay ee hayay ee u labisayay bay ahaayeen ilaa iyo maalintii la garanayo dee taakuleynay dadkaas ay ahaayeen cid kale oo lagu sheegi karaana ma jirto dee Axmedna malaha asoo fadhiisto daaduu ku noqonayo cid kale ku sheegayo daraawiish markay nooca ahayd ee magaceedu nooca yahay ee taliskeedu nooca yahay yaa daraawiish ayaan ahayn Maxamed Siilaan yaan ahayn marka uu intaaba leeyahay ee kii idibilay ee curiyay ee dhameystiray ee dejiyay ee u magac bixiyay ee ku duceeyay ee ka talinayay ee afyaqaanka ahaa ee caalamka hubka uga keenayay ilaa ina shixiri ah marka uu yahay waxa loo oran karaa daraawiishtu ahaa mise waxa loo oran karaa faqash buu ahaa isagii awowgii waxa loo oran karaa kuwii lahaa buu ahaa ee aasaasay maskaxdiisa iyo taladooda iyo adduunkooda iyo cududooda iyo xoogooda iyo garabkooda iyo logistics-koodaba bas wuxuu ahaa kii ka horjeeday ilaa ugu dambeyn maalintii uu in Cabdulla Xasan Taleex ka cararay ee la eriyaday ninkii ciidamada ugu sareeyay ee watay ee xuduudka xidhay ee in Cabdulla Xasan qabtay ee dharkayn geeyo ku qabtay ee u sareeyay ciidanka wuxuu ahaa dadka uu caaya Axmed ee abtiyadiisa Xasan Omar Xuseen Cali Galaal buu ahaa qabtay ee amba bixiyay ee sii daayay waa aniga awowgay waa aniga qoyskayga anigaygan hadlaya Xasan Omar Xuseen waa ninkii qabtay ee habeenka dharkayga ku qabtay ee ciidamadii isugu yeeray ee u khudbadeeyay ee yidhi waynu sii deynaynaa ee ay ka xanaaqeen ee yidhi waaray dhageysta 3 qodob baynu sii deynaynaa markaan idin macnaayana waa igu raacaysaan 3 qodob waxa weeyaan qodobka ugu horeeya ninkan lugooyadii iyo fadeexadii iyo dhiigii iyo dhacii iyo dilkii iyo digashadii uu Soomaali u geystay baa idin muuqda wax ka daran baa jira waxa weeye waxa ka darani
ninkaasu nin islaam uu sheeganaya soomaalinimaba halkan dhig kufaar buu la dagaalamo ka cadhaysiiyey haddii caawa aynu qabano oo dhiibno ilaahay ifii aakhiro midna inagu nabadgelin maayo buu yidhi waa qodobka koobaad qodobka labaad nimanyo waxaa moodaysaa ninka haddaynu caawa intaynu qabano kaxayno oo dhiibno in gaalo dilaysaa ama wax yeelaysaa waxba ma yeelayaan annagaa gaal idinka naqaana ninkaa intay dejiyaan oo sabaaraan oo wax siiyaan ayuu la taliyo ka dhiganayaa dabeedna wuu ciil qabaa dabeedna waa laynoo adeegsanayaa dabeedna waa laynagu dilayaa dabeedna cid ina ka reebi maayo qodobkaasina waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeyaan ninka aynu ognahay ee aynu sida liinta u tuujinay ee wuxuu yahay siduu yahay aynu u baranay ee sida qur-aanka aynu u akrinay ee waxaan lugooyo ahayn u jeedin ee wax soo diray ee shaydaan ka socdaa inaan garanayn haddaynu caawa qabano taariikhdu waxayna ku qoraysaa nin Soomaaliya oo gobonimo doona bay qabteen saddexdaa qodob baynu sii deynaynaa waynu isdhaafinaynaa meel walba Soomaaliya joogta meeshu qabanayo ha qabto sidaas lagu sii daayay xasan Omarna lagu raacay laguna salaamay ilaa habeenka kii badbaadinayay ilaa kii soo galbiyay ilaa kuwii dajiyay ilaa kii u magac bixiyay ilaa shantii afartii kala wehelisay taliska dadka uu caayay ka soo jeedo Axmed Abtiyada yabay ahay taariikhda daraawishada halkaas aan ku dhaafayaa waxaan u gudbayaa Axmed Saleebaan laftiisa Axmed Saleebaan dafle ay Axmed Saleebaan dafle waa kuma Axmed Saleebaan dafle waxa weeye raggii Maxamed Siyaad Barre ilaa habeenkii u dambeeyay la shaqeynayay Axmed Saleebaan mansabkii ugu cuslaa ee u weynaa waa ninkii mar walba hayay isagoo inankiisii ahaa oo gabadhiisa qabay Axmed Saleebaan dafle 13 sanadood generaal SRC ah isaga oo ah golihii sare ee kacaanka waa madaxii sirdoonka waa ninkii sirdoonka haystay dalku meesha uu ka jabo ama ka guuleystay waa sirdoonka Axmed waa ninkii ku guuldareystay ee ku fashilmay wixii dalka ku dhacay iyo xagaldaaci iyo qabyaaladii iyo qurunkii iyo kala daadashadii Axmed waa ninkii ogaan waayay ee ogaado ka shaqeeyo ka hortago iska dhaaf isagu sameynaya ka shaqeynaya waxa Axmed Saleebaan dafle waa ninka waa raggii xamar baabiyay waa raggii Soomaali baabiyay waa raggii Somaliland baabiyay oo ka soo jeedo ka dhashay Axmed Saleebaan dafle 1988 maalintii la soo galay Somaliland waraaqdii uu qoray waa la hayaa Axmed oo gacanta lagu hayaa hadaad mooday in lagu ilaaway Axmed oo laguma ilaaway ka tahay iyo waxaad gashay intaba waa la hayaa waana loogiyaa waraaqdii aad tiri dadka ciidamada ku jira kamidka ilaa haduu doono meelaha waraaqahan tagi doonaan kuwa haysta ee kow ka ah haduu yahay taliya oo ah haday guuto tahay haday gaas tahay haday qayb tahay gacan biraha lagu qabto ninkii yidhi ee la fuliyay ee 5,000 ee nin ee ciidamada u badan ee ciidamada laga soo dhax soocay ee lagu qabtay Hargeysa ee lafaadaadku soo saaraa ee isku xidhan warqadii lagu dilay ninkii qoray baa tahay Axmedow waa la hayaa waa loo yahay Axmedow ina daflow halkan aad timi Brussels baad joogtaa ilaa dhinaca halkaas aad joogtay intii ka horeysay Afrika aad joogtay markii maxkamad lagu geeyin waayay ee lagu xisaabin waayay ee maxkamad cad ee lagu geeyin waayay ee wixii aad gashay lagu qaadi waayay de xaq baad u yeelatay inaad ilowdo waxa aad gashay iyo waxa aad tahay inaad noqon weydo bidda qadarkiisa yaqaana oo edaab sameeyo aamusa ee aad qayliso oo danaanido xaq baad u yeelatay maaha wax rag loogu maamaayo dumarka waxay oran jireen xaq afka laga awda feeruhu ka dilaaca mala markii laga aamusay ayay noqotay inuu xaq ka qaylaalsiyo aad adigu qayliso oo isugu yeedho kuwii aad dulmiday ee laysay ee damirtay halka aad joogto inaad nooshahay inaad xusuusiso Brussels baad joogtaa maxkamadii war criminalka heegna
boqol kilomitir bay ku jirtaa oo aan joogi jiro oo aan aqaanaa intay isu jiraan waa xaq baa kaa qaylaalsiiyey waxaa jooga meel walba oo dabadaa jooga oo deris kula ah oo aanu kaa qarinayni agoomihii aada soo cunteen aabbayaashood adiga iyo afweyne aada soo layseen ayaa jooga waanu qarinayni si aanay magaca somalilan ama soomaali uga irdhoobin oo ula coloobin oo ay dib u noqdaan oo dib u hiloobaan baanu kaa qarinayni waad isugu yeedhyeedhay ilaahay waxaan ugu dhaartay waa inaanu indhaha sacabka uga qaadnaa sacabkii aanu kaa haynay uga qaadnaa oo ku tusnaa oo kuu sheegnaa oo faylkaaga lasoo saaraa oo aanu ku hor qaadnaa axmedow ma ilaahay baa kaa raagay markaasaad adigii isku qaylisay awood laguma waayin malaa waa lagu cafiyey mise waa lagu daayey waad isku qayliso waad isugu yeedhay waxaan kuu sheegayaa boqor meel degan baa waxaa la yidhi islaam dawarsata oo aan cid lahayn baa agtiisa qasriga agtiisa buul yar ku lahayd oo uga hoos dhisnaado buulkiibay maalintiina soo dawarsatay habeenkiina timaadaayo boqorkiibaa maalintii dambe intuu soo baxay buu hareeraha eegay oo buulkii yaraabuu arko buulkani muxuu ahay habar miskiinadaale oo ka qaada meesha oo dab sura buu yidhi oo habartiibaa fiidkii iyadoo gegiya meeshii timi oo markay timi bay tihi buulkaygii yaraa mee markaasaa la yidhi buulkii yaraa boqorkiibaa maanta soo baxay oo dumiyey dabeedna intay hareeraha eegtay bay tihi ilaahayow haddaan anigu dawarsi ku maqnaa adiguna xaggaad ku maqnayd boqorkiibaa dabadeedna intuu malag soo diray ilaahay baa malag intuu soo diray baa boqorkii iyo garab arladiisii iyo qasrigiisii wixiiba garabku ku dhufto meel la degay buu ka dhigay yacni bannaan waxaan ka wadaa dee malaha ya waxaanu leenahay oo anagu haddaanu cafinay oo iska badaynay ama iska badayno ilaahu dartaa u daynay oo ilaahu adiguna miyaad hey ilaahu waa daysay ku odhan maayo oo ilaahay haddii alla yidhaahdo isagalaad u gashay ku odhan maaye dee waxa ka raagay xukunkii iyo judgmentkii taana halkaas ayaan ku dhaafayaa waxaa kaloo jiro anina daflo u sheegaya ilaahay baa wuxuu yidhi dadka haddaanu layno aadmiga oo xisaabno oo dib u soo celino soo noolayno qaar baa halkii waxoodii ka miisi lahaa oo ka wadi lahaa kuwiibuu ka mid yahay ina dafle may ahayn maanta ninkii dhuuman lahaa weeye waa ninkii cibaadaysan lahaa waa ninkii isqarin lahaa waa ninkii ilaahay u toobad celin lahaa laakiin wixii uu galay intuu ilaawo wax kasii dara ninkii geli lahaa ina dafle muu ahayn laba arrin labadaba wuxuu galay kow ilaahay darteed inuu dib u celiya laba cimrigiisa markuu eego inuu dib u noqdo cibaadaystaa bay ahayd laakiin muu ilaawin xaqaa soo saara oo ka qaylaalsiiyey ina dafle waxaan kaloo u sheegayaa halkan waxaad ka sheegtay laba nabar oo ii hadhadoo waxaad ka sheegtay cali khaliif iyo khaatumaha la taageero baa tidhi cali khaliif siilaanyona waxbaa tidhi labadaa nin baan dadka u sheegaya cali khaliif iyo siilaanyo anigu qabiilna u jawaabi maayo qabiilna ka hadli maayo anigaa ah kuwa aada ilowday kuwa aada isku dirayso kuwa aada isku dilayso waxaba anigaa ka dhashay adigaa dhiigoodii ah waa labadaadii dhinac waa labadaadii garab waa labadaadii gacmood waa ehelkaagii waa ilmaabtiyada iyo ilmaadeerada iyo habroodagyada iyo abtiyada iyo seediyada iyo wixii kula dhashay iyo yacni aayooyinka iyo habaryaraha iyo eedooyinka iyo wixii ay dhaleen waxaanaad yacni dib isugu gubaabinaysa isku dilaysa adoo cimrigaasa intaad nabad ka doon lahayd ee dhexgeli lahayd ee dhacaankooda kala joojin lahayd cali khaliif un baan sheegayaa iyo siilaanya waxay kala yihiin taariikh runa baan ka sheegayaa nin walba awowgii baan sheegayaa cali khaliif galaydh awowgii waa aadan galaydh kumuu ahaa aadan galaydh waa ninkii isagoo 200 oo halaad leh malaa 100 sano meelahaas waqti laga joogo xilligii Soomaalidu xoolaha miyiga tijaarta ku ahayd ee magaalada lagu yaraa nin maalle buu ahaa oo caano miyiga yaal
nin tolkii isku dilay buu ahaa oo caan oo ku jira gabayada iyo taariikhda iyo mahmaha iyo heesaha 10 inan iyo 200 alaad buu lahaa inankiisa curad 2 naagood buu qabo 2 guri buu yeelay 20 jir buu ahaa maalintii dambe ninkii inaada galay oo Cumar loo oran jiray inanay isxigaan buu dilay labadii family baa isu tagay magtii baa loo fadhiistay 100 halaad bay ahayd 99 halaad baa tolkii soo saaray aada galay hal baa qabatay 200 halaadna wuu leeyahay ninka wax dilayna waa inankiisii hashii buu diiday 99 halaad kala alkaxaystay inta la cadhooday dagaal baa bilaabmay aadan galay 10kiisina baa lagu dilay maalintii u dambeysay isagii baa la qabtay dabadna waa ninkii bixiya aduuri khatal waa ninkii taariikhda iyo iskuulada lagu dhigan jiray waa ninkii gabayada ku jiray ku gumaadma reer cali gardarada qabaalkii intaan ceelka lagu goolin lama garan xaajada intaan guuto loo wicine ku gumaadma reer cali dibkay mar isu geysteen gardarada qabaalkii intaan ceelka lagu goolin lama garan xaajada intaan guuto loo wicine gadaal bay xusuustaan inay gamaasanaayeen gidigiin ba waaleedihiin ganaf wareerkaasi sidiina galeyd baa waqin ganafka laacdaane maanta garaarkii xujadu waa gu dheertahay waa ninkii la lahaa isagiyo tolkii aadan galeyd baa cali khaliif awow waa kow ana labadaba la dhashay oo dadka u sheegaya oo aqaana hadalkaas wuxuu socdaa reerayeyga wuxuu ku socdaa dhulbaante si fiican bay labadaba u garanayaan shiilaanyana awowgii waa inasan weyne waa ninkii ka shaqayn jiray nabadda iyo tasliixa ummadda iyo cadaaladda iyo runta iyo kala gurka iyo nabadda iyo nabardhaysta waa ninkii intaa ku caanbaxay waa ninkii la odhan jiray gartaas waa sidaa inasan weynana ugi reerayey waxaan leeyahay hadalkayga iyo hadalka cali khaliif iyo hadalka axmed salaaman daflaba inta halkaa dhigtaan labadaa nin baa ogtihiin labadoodii awow labadaydii yeedhayaana waa labadii awow labadii inana ay awowayaasha u ahaayeen nin walibana waxa awowgii yahay unbuu noqdaa nina nabad iyo gogol buu idinku yeedhayaa iyo shaqo iyo wanaag nina xabad buu idin qaybinayaa dee kaa doontaan qabta oo raaca idinka idinta allah mid kale axmed salaaman daflow waxaad tidhi soomaaliaad u yeedhay oo waxaad tidhi koonfur ay noo soo ciidamay oo cali khaliif iyo khaatumaha la taageero baad tidhi kuwa aad u yeedhaysaa axmedow waa kuwaanu isnaqaano ee isdagaalanay ee aad ka mid ahayd axmedow soomaali oo 30 sannadood jirtay oo gaamurtay oo waxaygii iyo waxeediiba isku jiraan waxeenni ilaa annagaad ahayde ma soo ogid aqoontaada adigu eedhe waar ka daaya waar u kaadiya markii nin waliba ka quustay ee raggii u dambeeyay ka quusteen ee aad ku kala baxdeen talada markaa wadanka qabanayseen inqilaabayseen Soomaaliyan kufsan oo isku meydaan ogeyn Soomaaliyan badbaadino musuq maasuq iyo qabyaalad iyo musuq iyo baarigaadiyay baa isu sheegteen qoladiina golaa sare raggii qaarna waa rumeeyay qaarna waa beeniyay raggii rumeeyay ninba marbu daaqada ka baxay oo idinka degay iska hortimaadeen sidoo idin war ka daay Ismaaciil Cali Abukar baa ugu dambeeyay iyo Cismaan Maxamed Jeelle oo labaduba golay sare kamid ahaa iyo wasiiradii raacay la xidhay Umar Artay iyo hadii la yahay Maxamed Aada Sheekh iyo Umar Xaaji Maxamed iyo kamid ahaa warsamo ruuf iyo Maxamed Yuusuf Weeraxiyo golihii sare Ismaaciil Jaraal Ismaaciil Cali Abukar iyo Cismaan Maxamed Jeelle kaga jiray Ismaaciil buu ahaa ilaa diyaaradda daayif u qaadatay oo laba habeen ku dib jirto ku wada hadashay aakhirkii markaa Ismaaciil xili doontaan adiga iyo Maxamed Siyaad Barre iyo Ismaaciil Cali Abukar waa taariikh qoran oo la hayo afweenaad raacday oo saddex ku ahaa oo meel kala soo jeesatay hay raga intii ugu xumayday afweene meesha subax 27kii May January 19 ragii habeenkii uu dumay la dumay baa lahayd la joogay madaxtooyada ninkii u dambeeyay ka baxay gaariga lagu saalaalaad ahayd adoo wali fadhiya cabowgay oo waagu kugu bariyay adoo sidaa adoo xogogaala adoo generaal ahaa adoo ciidankii Soomaaliya haysatay ogaa ciidankii cirka iyo kii dhulka iyo kii badda iyo diyaarado iyo maraakiib iyo baanankii intaaba haystay adoo 200 oo dawladood idin caawinayeen oo United Nations ku jiro xori iyadoo qaar idin ku caawinayeen United Nations iyo UN
iyadoo qaarid iyo United Nations iyadoo qaarid ku caawinayeen istaraatiijiyad qaarid ku caawinayeen intarisaydan kaleeyeen qaarid ku caawinayeen Arab League qaarid ku caawinayeen Islam League qaarid ku caawinayeen OAU qaarid ku caawinayeen IGAD intaaba adoo haysta halka intaan kaaga dhaqaaqay anoo faramaran ninkii ka soo dhaqaaqay ee faraa kaaga jijibiyay ee ka qaaday ee ku kala diray ee aad ilaa ka taanga herdiday ee aad kansuuma marba ku sii dhaxaysay ee aad qaxan noqotay fantashuru fil ardi wabtaqu min fadlillah ninkii ku yiri baan ahay oo maanta isagu dawladda oo wixii aad hayn kari weyday haysay la wareegay oo gacanta ku haysta oo calan leh oo baasaboor leh oo ashcaar leh oo ciidan leh oo madaxweyne leh oo madaxweyne ku xigeen leh oo wasiir leh oo janan leh oo hay'adii leh oo waxaan u dhamay wax walba u dhamaystiray oo ilaa badda ka soo jeestay waa ay ciidaad ugu yeeraysaa ku dhacda waan cafiyay oo waan iska daayay waan aqaan samirka ilaahay waan aqaan inaan gacanteeda ku ciilbaxo waad ogtahay waxaan baday waxaan ku baday waxaan idin baday nimankiina Soomaali kufsaday halkaad martay kabii ku gooyay sida u lugayseen dalawgii kala daadsanaantii dayciidan ku dhacay iswaagii qaxi waad ka dharagsantahay Axmed ninkii ku baday baan ahay aydiidana xamar keenay 13 gaari buu wato oo tignika oo aslan daaqada kaga taalo aydid cid isma yarag ciidankii Soomaaliyeed ana dhameeyay xogogaal baad ka tahay warwaayo awoodda geeska Afrika aniga ah awoodda geeska Afrika anahay waan iska daynayaa dadka Soomaaliyeed inaan dayaciisa ku digto inaan haadka yahan rawa ka dhirgay u raaco ma yihi maalintan musawi noqdo sida ay yeeshaan dadkiina qaarkiis ma yeelo anigu ilaahay dartii iyo damirkayga iyo aqoontayda iyo diintayda iyo dushayda iyo cadaaladayda intaas ay hor joogtaa 25 sanadood baan hubkayga dhufayska gelinayay oo caaro kaga baxaysa afka oo malab ku dhalanayay rag baa kala nignigle 19 baan magaalooyinkayga ciidankayga ku hor joogtay ay isku dileen iyagu Soomaali nabadeeda iyo nabadgelinteeda inaan dhibaato u geysan wallahi oo billahi oo tallaahi 19 ciidankii aan Soomaaliland ku xakameeyay magaalooyinkiisa wallahi inaan gelin koonfur Xasan Sheekh iyo marba miskiin yar oo yimi oo gaalo keentay oo meel ka yimi iyo meel ku dhamaanayo iyo waxa lagu fushanayo mid aan ka warhayn iyo mid waalan oo marba xiran oo brainster lagu sheegayo shahaado waaliya sita oo u aana wixii dhacay waliba kii loo raaci lahaa isagiyo dadkiisu ah oo wixii shalay dhacayba ilowsan markaan u aamusay iska daayay marba waxa ay soo mudmudayaan waxay soo dirayaan waan ogahay wallahi inaan soo din ciidanka ah oo garow cagta marin oo boosaaso cagta marin oo ma jeerteen iyo lawaay wallahi inaan kismaayo ilaa 3 ku tigi 3 days yaa dagaalamaan aniga ahay yaa Soomaali awood lahayd oo dagaalami jiray yaa wadnihiisu hoos u jeeda yaa wadnihiisu hoos u jeeda yaa kamaan dows ahaan jiray yaa loo qaadan jiray yaa cirka laga soo daadin jiray iyay ahaayeen ciidamadii aan rays magaadhada lahayn ilaahba oo abuurin yaa lahayn rays magaadho yaa rays magaadho leh yaa xiiqa yaa xiiqin yaa ahaayeen dagaalkii labaad Soomaalida wax lagu qoray shanteena Soomaaliyeed muddo meel buu ka dagaalgamay qaar qarbiya buu raacay waayo kuwa wax laga qoray yaa caalamka baray dagaalka habeenkii Axmed oo maarad cid igu yeedhaysa oo igu yeedhi kartaa xaguu joogaa ninkay cunaya marka ay dibooteen in agrada ka dayrsha dugsi looga leexdaan daba gal yaqaana markay ciinka daaqdaan dabka ugu xidigiya nin dumaala baan ahay dagal fula ka barakacay nin ku diirsadaan ahay maalintay u daran tahay marka daawad lala tago nin degsan iskaga hadho annaga ku dirino halka dagan ku dhicino sida loogu dabar go'ay deelay ka tirine gudaha iyo dabadaba nin dabcow dhan uga bay ninkii lahaa baan waxaan ay ninkii lahaa dalamba bi noqoshada maqasha isdayatay dib u guuri maayo nin daafuray kalkiisa oo dalkan waan aqaana bahaliga daaweyno dadcuni ma joogo ma dida hargoolow haygu tumin durbaanada iyo daasada madhan waa aniga kii lahaa ma jirto cidaad igu yeedhaa ha ku digan masaakiinta
ciidanka idinka jeeda iyo hubka caaradu kaga baxday afka iyo godka axmedow ha u dhiibin ciidamada salabka ina daflow ha u dhiibin axmedna ciidankuu garan mayse waxaan ku leeyahay waxaan kaga baxayaa hadalkayga taariikhda aada calaalisay ee axmedow ka sheekaysay ee cayuubtay iyo waxa aada soo qaaday maalintii dhood waxaa weeyaan xaqiiqdoodu dadka dhegihiisa aada ka wasaqaysayna xaqiiqda dhabta ay waa taa annagaa dhagaa u maydhayna annagaa u culayna annagaa u safaynayna annagaa runta u sheegayna wixii taariikhda wax ka gadisan hayaa aada lacmiidaan waanu u fadhinaa bedka ninkii aan haynee doonayayo waa sidaa xaqiiqdeedu taariikhda axmed saleebaan dafle calalinayo ninkii hayo waanu kuusii dhabaynay ninkaan hayno orodoo laybareeryadaa tagoo annaga noo kaalay waxaan kaga baxayaa inaad daflena waad isa sheegtay inaad nooshahay oo weli joogto waad isa sheegtay waxa kugu jira waad sheegtay inaad weli halkii ka miisayso oo kuwii ilaahay sheegay yidhahdaan dib u soo celino qaar ba halkii inaad kii tahayna waad isa sheegtay waxaan kuu sheegayaa iyada oo soomaali maanta ay gumowday oo dhaqangedii oo gunta ay ka ruqday oo xididadu u baxeen oo ay garow iyo run iyo haddii la yidhaahdo yacni wax wanaagsanba ay meel ka martay oo ka sabooshay adigu waxaa la odhan jiray ninka caydhooba wuu saboolay qofka aradana waxaa la odhan jiray wuu aradan yahay soomaali oo maanta ka sabooshay oo ka araday baan leeyahay run iyo dhaqan iyo garow iyo wanaag iyo gobonnimoba anigaa idhi anaa hadalkaa idhi anaa hadday xuntahay in qaatay hadday wanaagsantahay ayaad adigu awalba adigu waad ka qaawanayd oo ka aradeed markii horeba hadalna maad aqoonna maad lahayn kugumanaya amban dadkaad yacni la colowdayna dee waa wixii ilaahay ku baday ee kaa dhaliyey intaasaan hadalkaa kaga baxayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت برنامج كانوا كلا كل مدة وحنا تيجي سدا يو نبات جليو. صدق ما